بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal waxaan maanta rabaa inaan soo gudbiyo waxa igu soo zaa'iday oo information muhiim ah oo ka timid xagga xeer ilaalinta guud ee qaranka oo muddo socotay baaritaan ka socotay labada hotel oo baariyo lahaa oo la yiraahdo hotelka numberka 1 hotelka numberka 2 oo ay ahayd dacwo ka socotay muddo hal sano iyo bar isla markaana aan ka dacwoonaynay laba dhinac aniga aan ku dacwoonayo ay tahay Maryan Macalin oo Maryan Cabdullaahi Yuusuf loo yaqaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo Maxamed Amiin Sheekh Yuusuf oo ahaa nin ganacsata u noqday Maryan Macalin daraadeed isla markaana waxaa soo galay nambarka 3 oo ka soo qayb galay dacwada socota dhexdeeda soo galay Ahmed Jimcaale oo mas'uul ka ah Hormuud Telecom dacwadaas ay muddo waxay socotay intaas hal sano iyo bar baaritaankeedina ay gabagaba ahayd waxaa soo gashay howl foolxun oo ah inay madaxtooyada Soomaaliya ee Xasan Sheekh iyo walaalkiis oo leeyahay Cali Sheekh isla markaana ninkii xeraalyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir uu noqday nin aad u jilicsan oo qaato awaamirtii aan loogu talagelin xagga dowladnimada xagga xeerta xagga nidaamka iyo maaragtay kala saarinta dadka dhibaataysan isla markaana wuxuu noqday nin awaamirta la siinayo u qaadanayo si foolxun hase ahaatee waa ninka keliya oo madaxweynaha soo eedeyn lahaa sharciga markii la fiiriyo laakiin waxay noqotay in uu Xasan dhex galo laba qof oo shakhsi ah oo isaystay dacwadooda inuu asaga hor fariisto oo yiraaho ana kala saarayo oo ku kala saarayo si gardarro ah oo xaq lahayn cadaaladda iyo nidaamkeedina waxaan jeclahay xeer ilaalinta oo kaamil ah maalintii dacwada bilaabatay ilaa maanta wixii document ah almost maanta inta u badan gacanta ii soo gashay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan rajaynayaa si degdeg ah inaan soo geliyo joornaalada iyadoo qoraal ah waraysi ah dadka la wareysanayo kaamil ah ragga dambiga ee galay qoraalkoodii caddeyntoodii xeer ilaalinta baaritaankeedii cod iyo qoraal intaba waxay ahayd waxaa jirto in ay la yimaadeen document false ah oo aan sax ahayn muddadii ay ku maqnaayeen hal sano dacwada socotay inay qayb ahaan markay waayeen wax dokumenti ay guriga ku gateen inay iyaga soo falsigareeyaan warqado been ah halkan waxaa la igu soo diray ergey uu soo diray nin la yiraaho Axmed Sacuud oo gudoomiyaha Hormuud ah waxaan iskhilaafnay hadalkii oo ahaa in aniga aan weydiisto ilaaho gurigayga ana iskale lagalama hadli karo yani waan lama geli karo waan waxaan geli karnaa markii gurigayga aniga la igu soo wareejiyay gacantayda sidii loo iibsan lahaa noqoto ama sidii aniga compositionkayga la isiin lahaa waxaa dhacday in ay arrintaasi ku adkaatay waxaa iisoo diray haddana argey Axmed Jimcaale oo nin odayd u yahay oo la yiraaho Mahad Cabdalle Jimcaale oo ka yimid London oo u yimid arrintaanayto inaan ka wada hadalno waanteedii taana waa isku gafi weynay waa heshiin weynay oo waxaan ku heshiin weynay asbaabaha ka mid ah aniga gurigayga lagalama tashan karo waana kama geli karo balse waxay noqotay in ay isku dayaan in ay ku doontaan laaluush oo ku doontaan awood Maxamed Xasan Sheekh oo maadaama uu ahaa nin iyaga connection ku leh xiriir fiican ku leh anigana aan ahay nin dibadda joogo xiriirkaygana uu ka yaraa xagga madaxweynaha naagta la leeyahay Maryan Macalin ay tahay gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe oo iyadana awoodda kale wadatay Maxamed Amiin Sheekhna wuxuu ahaa sheer ahaa ama la shaqeyn jiray ninka la yiraahdo Cali Sheekh oo marna damiin ka noqday in asagii oo la yiri airport ma bixi kartid oo cadeynteeda aan hayo warqadii laga saxay oo soo saxay xeeranta gudaheeda waxaan meeshan ku darayaa maanta ku zaa'idinaya inaan hayo wixii record ah oo dhan oo hadal ah ay ku wada hadleen waxaan hayaa wixii qoraal ah oo document ah maalintii bilaabatay
xeer walbo iyo qof walbo oo la weydiinayo waraysigooda. waxaa maanta marka caddaan ah in ay tahay musuqmaasuqeedii caadiga ah maahe, waa wixii loogu talagalay inay qaadato muddooyin ilaa 30 sano 20 sano madaxweynihii ama ha noqoto dhowr qaybood, laakiin waxaa degdeg noqotay 4 sano gudaheed madaxweyne ah inuu noqdo nin aada raqiis u ah oo meel walba oo neef lagu qashaba uu iska tago maarata yidhahdo waa ka qayb galay shirkaas. meesha laga rabay brotocoolkii madaxweyneyaasha inuu tago wuxuu abaabulay in uu suubiyo wixii documenti oo faarsan loo keenay inuu isaga ansixiyo. xeraalyaana wuxuu noqday ninkaas oo ah nin jilicsan ee aan ku adeegsanayn sida xeernimada loogu dhiibay iyo xilkii loo dhiibay oo ahayd xataa inuu madaxweynaha gaarsiin karo eedeyn karo hadduu madaxweynaha qaldayay. waxaan kaloo meesha ka sheegayaa oo muhiim ah in la dhegeysto qoraalkaas aan qoray, in loo gudbiyo wixii aniga arrintaa quseynayso oo dhan, islamarkaana caddeynteedii iyo qoraalkeedii aan hayana soo gudbinayo. naagta laleeyahay Maryan Macalina ay ahayd qofka iyada hawsha kala maamulaysa waday, anigana iga qaaday awooddaas iyo xilkeeda, dhibaatadan ii geysatay. raggii iyada la wadatay iyo nimankii xirtay oo dhibaatada ii geystay muqdisho markaan joogayna ay iyada abaabulayso masruufkii iyo mashaariicta bixin jirtay, aniguna ay gula socotay weji wanaagsan oo ah walaal waa fiicannahay, adiguna wax dhibaataa marka u qabo kan lama yeeli karo, laakiin ay markii dambe ay arrinta fashilatay. waxaan marka caddeynayaa maanta in ay anigana alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin aan noolahay, rag iyo xire iyo ragga dhibaatada ii geystana ay nool yihiin, ay joogaan, ay xeelaalintii yimaadeen, ay caddeeyeen wixii information oo meesha ka jiray. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin raggii gabadhaa shirkadda la ahaana ay caddeeyeen in dhibka dhacay uu ku dhacay cabdilqaadir ee iyaga qayb ka ahaayeen. iyadii keliya ayaa noqotay wax aan caddeyn oo runnimadii iyo walaalnimadii aan la imaan meesha, laakiin inta iyada shirkaddana la ahayd, inta ay iyada isticmaalayso mooryaanta ahayd, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa wada nool yihiin. markhaatina way fureen, waxaan markhaati furin waa iyada keliya, waan caddeyn wixii xilka ah iyo waxa mas-uuliyadda ah. haddana ku shaqaysanayso wax aan saxayno foolxun. caddeynteedana waxaa laga heli doonaa nimanka wareysiga la wareysanayo iyo siday u hadlaan, qoraalkii ay qoreen, waxa ay saxeexeen. maxamed amiin sheekh warqaddii markii la wareysanayay gurigan siduu kugu soo galay 5 dabaq ah, caddeynteediina iyadoo qoraalnahaya oon soo gudbinaya.